بسم الله. maanta waxa waaye isniin taariikhdan waxay maraysaa 13 bisha koowaad sanada 2025 sanadka uu noo dhamaaday masha Allah sanad cusub ku jirnaa bishii koowaad laba isbuuc hore u soo qaadanay isbuuca hadda insha Allah maanta waxa waaye maalin trade ay noqon doontaa bilaahimo marka insha Allah trade kana rabaa inaan xir aan falanqeeyo intaanan gudaha u gelin hadii ilaahimo trade kan horta waxa kor qaatay sababta u qaatan waxay ahayd saaka London markay furantay si xawli ku dhaqaaqday kadibna waa soo reject gareeyay si xun ayaa la soo celiyay arkay kadib ani London inaan trade qaato ma rabin waxaan sugayay ilaa NY ay ka furanto NY markay furantay NY halkaan ay ka furantay zone kan ay ka furantay NY markay furantay wax yar waa iska mashquul wax yar kadib waxaan arkay trade-kii oo meesha aan rabay ayuu ahaa qobtan inaan ka qaatay ahayd waan iska sugay ma qaadanin markuu kor aaday soo laabtay kadib waxaan qaatay trade ka qaatay walo wax yar ay dhaafay xogaha oo wiiraan waxay dhaafay 12 bit meelaas marka insha Allah trade-kan wuxuu noqon doonaa trade-kii sanadka trade-kii labaad trade hore aan qaatay oo loo san qaatay trade-kan wuxuu noqon doonaa trade-kii labaad aan qaadanayo sanadkan hadii la hayno marka insha Allah hadii ay noqoto kulay waxaan u socnaa waa London Open ayaan target gareynaa London Open markaan target gareynaa waxa laga yaabaa inay noqoto 1 to 1 meelaas inay noqoto hadii 1 to 1 aan ka helno risk management aan la imaan doonaa stop loss kiisina 1 hour ka meeshaan aan ku manage gareeyay 1 hour nus saac aan ku manage gareeyay maanta sababtoo ah 1 hour ku dheeraa maadaama uu dheeraa kulay hoostaasaan keenay marka waxaan rabaa hadii ilaahay markuu trade noo dhaqaaqo oo si fiican ugu dhaqaaqo zone-kan ama zone-kan uu imaado ama zone-kan uu high gareeyo week-kan area markuu soo gaaro kadib waxaan isku day doonaa hadii ilaahay inaan trade-ka iska manage gareeyo ama stop loss-kan soo dhaweysto kadib aan iska sugo natiijada trade-ka ilaa meesha ugu dambaysa uu gaari doono oo ah ilaa korkaan inuu gaaro macquul ah walow ayaantan labadan beri ay si xun usoo daadatay GJ si xun usoo daadatay kulay waxaan la jiraa kulay biaskan la jiraa waxa laga yaabaa in waxaan la qaado oo badanaa GJ waxay ku jirtaa maanta bank holiday ku jirtaa markay bank holiday ku jirto way dhaqaaqdaa lacagta oo Great Britannia baan ayaa dhaqaaqdo GBP da si fiican u dhaqaaqdo kulli saaka dhaqaaqeeda samaysay dhaqaaqa saaka oo laga soo celiyay aan rajaynaa in marka haddana korkaas loo wado ilaa zone-kan oo meesha saaka la geeyay in la geyn doono hadii ilaahayno insha Allah hadii meelaas ay gaarto okay laakiin hadii ay ku soo laabato zone-kan meesha aan joogo iridan ama area aan kasoo galay area u dhow hadii kusoo laabato waan iska xiri doonaa hadii ilaahay kulli insha Allah sidaas ahaan doontaa wixii trade update ah dib aan iska soo trade update garan doonaa hadii ilaahay ما شاء الله 15 kale hadda markuu furmay week hoos u soo qaatay kadib waxa uu socdaa kulay meeshii aan qorsheynayay oo ahaa TB-hina qaybtan hadduu meesha soo gaaro 1 to 1 ka hadduu 1 to 2 ayuu socdaa 1 to 1 hadduu soo gaaro kulay iska manage garan doonaa kadib stop loss ka entry keeni doonaa kadib waxaan u deyn doonaa all the way up qaybtaas haddii aan rabano qora partial waxaan ka qaadan doonaa marka insha Allah trade-kii maanta sidaas uu ku socdaa kulay trade kale oo saak hore tii London ay bixisay halkaas ayuu ahaa London halkaan trade ka bixisay waxay isku disay inay London markay furantay si xawli ay ku dhaqaaqdo waa la soo diiday Asian high inay aadi rabtay zone-kan inay aado kadib laakiin waxaa loo soo celiyay Asian low oo halkaan ahayd ayaa loo soo celiyay si xawli ay ku imaaday kan dharkan meeshaan waxaa ku jiro maxaa la lahay kan dharka markuu soo laabtay si xawli ku soo laabtay in badan hoos ayuu soo aaday kadib wuxuu samaystay support halkaas ka samaystay halkaan support ka samaystay kadib hadda TB hana da ujeedin wax ka harsan malahan almost TB koowaad hadda waa smash gareeyay masha Allah kadib waxaan samayn doonaa hadii ilaahay inaan keensano stop loss kina entry inaan keensano stop loss inaan entry keensano waxaan noo harsan kulli taas way kadib wixii faa'iido aan ka qaadan karno aan ka qaadano 42 bib si maraya insha Allah kulli wixii trade update trade meesha ku dhamaado dib ayaan soo waday doonaa laakiin hadda SL waxaan keensan doonaa stop loss waxaan keensan doonaa entry intaas sidaas ay ahaan doontaa hadduu trade-kiga wixii faa'iido aan ka qaadan karana waa ka qaadan doonaa haddii ilaahay idmo wixii akhbaar trade update insha Allah dib soo update garan doonaa assalaamu calaykum ما شاء الله trade-kayga maanta waxa waaye horta TB waa nagu dhacay si fiican TB koodii aan rabay TB 1 wuxuu ahaa ilaa 40 bib
هذا مركو كونتم بيبقى اسك حري زون كاسا ku xiray trade maanta meeshaan ku manage gareeyay maasha Allah si fiican ayaan inoo soo dhaweeyay GG maanta insha Allah kulli saas ay ahaan doontaa maalin kasta wixii trade aan qaato iyo trade update-na kulli waa idin soo wadaagi doonaa sidii caadi ahayd sanadka hore markaan trade aan qaadan jiray si daily aan soo geli jiray bal hadda fasax ku jirnay ayaan tan suuqa fasax iskaga jiray laakiin maanta si fiican GG meeshaan meeshaan kasoo galnay halkaas ahayd laakiin intrigay halkaas oo ayaw ahaa ani laakiin wuu ilaafay kadib halkaasaan ka qaatay hadan insha Allah halkaasaan ugu baxay ma rabi inaan sii hayo ilaa all the way up ilaa korkaasna hayo ma rabo sababtoo ah suuqa waxaa laga yaabaa inuu bullback igu soo laabto kadib haddana cashar iyo waxaan leeyahay marka insha Allah maanta halkaasaan kusoo dejin doonaa trade-ka aan qaatay GJ. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.